iyadoo dagaalka ka socda Suudaan uu galayo sanadkiisii saddexaad haddana labada kooxood ee dagaalka ka wada gudaha Suudaan ayaa weli ku jira dagaal awoodeed salfaday nolosha kumanaan shacab maleeshiya iyo ciidan bay isugu jira tirada dhimashada ayaa si weyn u kala duwan iyadoo ergeygii hore ee Mareykanka u qaabilsanaa Suudaan uu soo jeediyay in ilaa iyo 150,000 oo qof la dilay tan iyo markii colaaddu ay bilaabatay 15 Abriil 2023 in ka badan 14 milyan ayaa barakacay taasoo keentay dhibaatada barakaca ugu xun adduunka ku dhawaad 3 milyan oo qof oo Suudaan u dhashay oo barakacay ayaa u qaxay meelaha aan xasiloonayn ee Chad, Ethiopia iyo Koonfurta Suudaan iyagoo ka gudbaya xuduudaha dalkaasi qaramada midoobay ayaa sii wada inay codsato taageero dheeraad ah iyadoo in ka badan 30 milyan ay u baahan yihiin gargaar bini'aadanimo oo degdeg ah qatarta amniga iyo xaaladaha cunno yarida ee sii xumaanaya ayaa muujinaya dhibaatooyin gaajo ah oo weliba ah kuwa ugu halista badnaa ama ugu weynaa ee maanta ka jira dunida dhanka kale dadaalada dhexdhexaadinta ayaa ku guuldaraystay inay soo saaraan natiijooyin iyadoo hogaamiyaasha ciidamada qalabka sida ee Suudaan ee loo soo gaabiyo SAF iyo ciidamada taageerada degdega ee loo gaabiyo RSF ay diideen inay joojiyaan rabshadahooda iyadoo wararka ka imanaya Suudaan ay sheegayaan in Imaaraadka uu soo gaarsiiyay sanad military oo xoog leh kooxda RSF oo maalmihii u dambeeyay xasuuq daran u geystay dad shacab ah oo ku sugnaa meelo cusub oo ay qabsadeen waxa dhacaya gudaha dalkaasi Suudaan ayaa lagu tilmaamayaa musiibooyin colaadeed oo laga soo shidaalinayo dhinaca Imaaraadka, Ethiopia iyo Israa'iil iyadoo ay kala duwan tahay sababaha ay dalalka aan soo xusay ugu lug leeyihiin taageerada ay siinayaan kooxda RSF si guudna waxa lagu macneeyaa in Israa'iil ay doonayso in kooxda RSF ay hanato dhulbadeedka Suudaan si ay halka uga hesho iskaashi ku dhisan istiraatiijiyad ay xagga badda ku sii xoojiso la socodkeeda dhaqdhaqaaqyada Iiraan iyo danaheeda bariga Afrika haddaba iyadoo xaaladdu ay ka sii darayso ayaa Carol Sakawo oo ka tirsan barnaamijka cunnada adduunka waxa uu ka digay in waqtiga uu sii dhamaanayo isla markaana ay halis ku jiraan 100,000 oo reer Suudaan kuwaasoo laga yaabo inay u dhintaan raashin la'aan iyo biyo la'aan xoog leh oo haatan haysata balse guud si aan wax uga fahanno xaaladda guud ee dalka Suudaan aan dib ugu laabanno taariikh yar oo kooban qaybtii hore ee qarnigii 20aad Suudaan waxay ahayd maxmiyad ay wadaagaan Masar iyo boqortooyadii UK oo loo yaqaano Anglo-Egypt ama Anglo-Egypt Masar iyo boqortooyada UK waxay saxiixeen heshiis ay madax bannaanida ugu wareejinayaan jamhuuriyadda Suudaan sanadkii 1956 kala qaybsanaanta gudaha ee u dhaxaysa gobolka waqooyi ee hodanka ah dalkaas kaasoo ay degaan dad madow laakiin aaminsan inay Carab yihiin iyo muslimiin badan iyo gobolka koonfureed oo isagana dhinaca kale aan horumarsanayn kaas oo aqlabiyadda dadka ku noolna ay masiixiyiin ahaayeen ayaa dhaliyay laba dagaal oo sokeeyo ugu dambeynna sababay in dalkii Suudaan uu noqdo laba dowladood oo darisa sanadkii 2011 dagaalkii sokeeye ee labaad ee Suudaan laga soo bilaabo 1983 ilaa 2005 waxa uu dilay dad lagu qiyaasay 2 milyan oo qof iyadoo la diiwaangeliyay macluul iyo xasuuq baahsan bishii Luulyo 2011 dhulka koonfureed ee Suudaan ayaa go'ay oo sameeyay dowlad cusub oo la yiraahdo Jamhuuriyadda Koonfurta Suudaan xukunkii raagay ee Umar al-Bashir ayaa horseeday wax badan oo daruufo siyaasadeed ah tan iyo markii uu gumaystuhu ka baxay dalkaas al-Bashir wuxuu xukunka dalkaasi ku qabsaday afgambi military 1989 kadib markii uu soo shaqeeyay qaybaha militariga isagoo ahaa sargaal ka tirsanaa ciidamada qalabka siday ee Suudaan ee loo soo gaabiyo SAF al-Bashir markii uu ahaa madaxweyne wuxuu la tacaalay dagaalkii sokeeye ee labaad ee Suudaan gooni u goosashadii koonfurta Suudaan iyo colaadii iyo dagaalkii Darfur oo qarxay 2003 iyadoo markii dambana ay maxkamadda dambiyada caalamiga ICC ay ku cambaaraysay xasuuq lagu bartilmaameedsaday dad aan Carab ahayn oo ay ku jiraan dad loo yaqaano Fur Zakhawa iyo Masalita ee galbeedka dalka Suudaan dega nidaamkii Bashir wuxuu jiray ilaa 2019 tobankii sano ee ugu dambeeyay ee madaxweynimadiisa al-Bashir waxa uu la kulmay dibadbaxyo waaweyn oo dadweynuhu ay ku baaqayeen isbedel iyo dimuqraadiyad
helitaanka adeegyada lagama maarmaanka iyo nidaam cusub oo maamul. Kacaankii Suudaanna wuxuu ku dhammaaday afgembigii Abriil 2019 kaas oo si wada jir ay u fuliyeen ciidamada xoogga dalka Suudaan oo uu hogaaminayay Generaal Abdel Fattah al-Burhan iyo ciidamada amniga degdega ee loo gaabiyo RSF oo maleeshiya uu hogaaminayay Maxamed Hadmaan Xamadi ee dagaal ku magac dheer. RSF waxaa kooxdaasi ugu awoodda badan ee ahayd xagga militariga xilligii al-Bashir ka soo baxay dhinaca maleeshiyada Janjaweed oo ah koox hubaysan oo Caraba laguna eedayn jiray inuu fallaagadaasi qudhiisa uu maalgelin jiray al-Bashir si uu ugu caburiyo koox ka dagaalanta koonfurta Suudaan. kooxdu waxay weerar iyo dambiyo bahalnimo ka geysteen gobolka Darfur oo ay ku jiraan barakicin ballaaran, rabshado, kufsi, afduub. labadii sano ee ugu horeysayna colaadda Darfur waxa ay galaafatay nolosha in ka badan 200,000 oo qof tan iyo sanadkii 2005. sida ay kooxda baaritaanka xasradaha hubaysan ee Afrika ay sheegeen, al-Bashir oo taageero siinaya kooxdaas ayaa si rasmi ah ugu abaabulay astaanta RSF kooxdaas sanadkii 2013. tan iyo markaas RSF waxaa loo shaqaalaysiiyey sida ciidan ilaaliya xuduudaha iyo sida koox calooshadu shaqaystayaal ah oo u helanaa isbahaysiga Sacuudiga ee dagaalka ka dhanka ahaa Xuutiyiinta Yemen, iyadoo sidoo kalena ciidan amni oo la shaqaalaysiiyey ay u ekaayeen si loo caburiyo kacdoonnada dadweynaha. hogaamiyaha RSF Xamadi wuxuu noqday mid ka mid ah ragga ugu taajirsan Suudaan isagoo la wareegay maamulka macdanta dahabka ee ku hodanka ah dalkaas. ka hor 2019 Bashir waxa uu shaqaalaysiiyey RSF si uu isaga ilaaliyo afgambiyada iyo isku dayada dilka loo maleegayay qudhiisa. iyadoo ay taasi jirto, RSF ugu dambeyntii waxay ku biirtay ciidamadii militariga Suudaan afgembigii 2019 si ay xukunka uga tuuraan Bashir una dhisaan dowlad ku meel gaara iyo dastuur cusub. Burhan waxa uu hogaaminayay golaha madax bannaanida ku meel gaarka, iyadoo Xamadi uu ahaa ku-xigeenkiisa, isaga oo ay weheliyaan hogaamiyaal kale oo militari iyo kuwa dhowr oo rayid ahaa. xubnaha rayidka golaha ayaa waxaa ka mid ahaa Cabdalla Hamdok oo dhaqaaliyahan ah iyo qabiir xagga horumarineed kaas oo loo doortay ra'iisul wasaaraha dalka Suudaan. intuu uu xilka hayay wuxuu isku dayay inuu yareeyo qalalaasaha dhaqaale ee ba'an ee Suudaan iyo abuurista mashaariic xasiloon oo ka caawin lahaa Suudaan xasiloonida gudaha iyo danaheeda dibadeed. si kastaba ha ahaatee, SAF ama ciidamada xoogga dalka Suudaan iyo RSF waxay abaabuleen afgembi ka dhana Hamdok bishii Oktoobar 2021 waxayna laaleen dastuurkii guud ahaan dalka Suudaan lahaa. jawaab ahaan, hay-adaha caalamiga sida Bangiga Adduunka iyo Hay'adda Lacagta Adduunka ee IMF ayaa joojiyey cafinta deynta iyo gargaar kale oo loo baahnaa in la siiyo Suudaan. dibadbaxyo ballaaran oo lagu dalbanayo in lagu soo celiyo xukunka gacanta rayidka ayaa goortaasi ka sii xogeystay gudaha Khartoum. Hamdok waxaa si kooban loogu soo celiyey ra'iisul wasaare bishii November 2021 kadib markii uu ogolaaday inuu awoodo in uu siiyo ama uu siyaabo gaar ahay ugu kala maamuso Burhan iyo Xamadi qaybo ka mid ah habmaamulkiisa. si kastaba ha ahaatee, ugu dambeyntii Hamdok wuu iscasilay Janaayo 2022 iyadoo dibadbaxayaasha Suudaanna aysan ku qanacsanayn shuruudaha dib u soo celinta iyo falalka rabshadaha wata ee ciidamada amniga. ciidamadaas oo si isdaba joog ah u garaacayay marna dilayay dibadbaxayaasha rayidka ahaa. haddaba dhegaystu waxaad heli doontaa qaybta labaad ee warbixintan oo iyana macluumaad xambaarsan.